I, Fatuma Abdi Jeho. kadib markii xilka loo dhaariyay wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Marwa Faaduma Abdi Jeho waxay u kabsatay in ay u adeegto shacabkii soo doortay iyadoo garab istaagtay haweenka aadka u liito ee Wajeer. Marwada ayaa geedi socodkeedii shaqo xafiis walba u gashay iyadoo ay ka go'an tahay in haweenka Wajeer ay wax helaan maalgelinta gurubyada haweenka kala duwan. waa mid mar walba ay gacan gooni ah ku qabatay Marwada inkastoo baahida aadanaha la dhamaashitiri karin. bixinta lacagaha waxbarashada iskuulaha, caawinta suufka gabdhaha oo ay si joogto ah u bixiso. Marwada ayaa sidoo kale caawisay dadka naafada ah waxayna ku deeqday gawaarida curyaamaha, dallada ganacsiga haweenka, qudaarta iyo caanaha, teendhooyinka shaqo abuurka dhalinyarada. Marwada ayaa sidoo kale iftiimisay barnaamijyo ganacsi iyadoo lacagaha maalgelinta xoolaha bixisay, taageerida 700 oo hooyooyin ah kuwaasi oo loo qaybiyay lacag dhan 10 milyan. waxay bixisay burjikooyin casri ah, caawinta masaakiinta xilliyada Ramadaanka oo ay si joogto ah u bixinaysay Ramadaan kasta. waxay bixisay mootooyin ay shaqo abuur uga sameysay dhalinyarta Wajeer. Xuseen Muumin oo ku dheer Bulac waxaan ka imaaday magaalada Eldas sub county gaar ahaan magaalada Majabow. waxaan meeshaan u imaanay gabadha walaashayde oo soo xasuusatay ayaa noo dhawaaqday oo dhahday kaaliya bigbigyeelkan qaata. shaqalaan iska helna anaga waxaan u maleynaa dhowr sano shaqalaan iska helna maadaama aan shaqalaan heynay nin xaasne waa ahay. waxaan u maleynaa ilaahay go'daalihi adin 12 cunug ay joogto kabaruraan aan ay dawladdu ma shaqaynin bigbigi ma haysanin. gabadhan walaashay maanta maaragtay soo xasuusatay. waxay caawisay arday reer Wajeer ah oo ay ka bixiso waxbarashadooda. waxaan si gaar ah u eegnay dadaalka wakiilka dumarka Wajeer iyadoon dhammaan shacabka Wajeer gacan lala gaarin, balse sida muuqata waxay qabatay wax la taaban karo. socdaal mahadcelin ah haba sheegin. bulshada waa ay kasbatay Marwa Faaduma Abdi Jeho maadaama ay inta badan ku soo noqoto magaalada markii loo eego siyaasiyiinta kale. Marwada ayaa si cad u hor istaagtay madaxweyne Ruto iyadoo ku adkaysatay in wakiilka woodka Deelo Yusuf Telfio la soo daayay xilligii uu maqnaa. Marwada waxay sidoo kale garab siisay hooyooyinka markii la oran jiray suuqa qorraxi in gibi ahaanba la xiro. maadaama uu nahay mas'uulkiini oo matalaya gabdhaha maanta waxaan rabaa inaan in sheego inaan la hadlay gabanaga iyo MP-ga Wajeer East oon arrintii ka tashanay oon anaga dib iskugu noqonayno oo arrintan la dhahay isniintii meeshan laga kicin ay jirin. Marwada ayaa u muuqata siyaasiga ugu shaqada badan Wajeer markii lala barbar dhigo siyaasiyiinta kale.